السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadan idinku talagalnay saakayo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha May sanadka 2025 barnaamijku waa kii subaxnimo waa barnaamijkeena subax waxaana ku soo qaadanaynaa laba qodob oo muhiim ah qodobka ugu ballaaran waxaynu kaga hadli doonaa waa arinta barnaamijka dib nooga dhigtay oo aan sugaynay sababta uu dib u dhaca ugu yimid kulankii madaxda wadamada khaliijka inkastoo uu hadda furmay oo qaabkii u dhacay muxuu u iman waayay madaxweynaha Imaaraadka محمد بن زايد محو إمام واي سلطان كي عمان سلطان هيثم حتى شيكوين هوسة يوحيابو لا يسكو حيو خليج كالحديثة يترام أوكو وريري شيكوين كاس أيان برامج كايديكو وفافاهي الدورة قيبت الدنبار وحديكو يا حوتيغو أوس سدح جير وريري تلابيب أفري لا تساع كدود قضو بضا سينو برنامج كينا كفافاهينينا انت أكوشر روحي وريري سوكر رواني دي لسعود سيدة توكتان كسو روادا برنامج subaxnimo saakay waa arbaco hadaba barnaamijkeena waxaad moodaa inuu dib u dhac ku yimid laakiin xageena maaha waxaynu doonaynaa inaynu adika wax wanaagsan oo markaa socda iyo xaaladda idinka dabageyno hadaba shir waxaan sugaynay khaliijka dowladihii madaxdii khaliijka oo Trump ku ballansaday Riyaad inuu markaa shirka ay halkaa isugu yimaadaan oo uu khudbad u jeediyo oo uu la hadlo laakiin waxba dhacay muddo la sugay telefishinadii dadkii oo dhan waa daaheen maxaa dhacay madaxweynihii Imaaraadka Mohammed bin Zayed muusan iman ninkii la yiraahdo suldaanka Oman Sultan Haytham muusan iman yay soo direen xaaladdu maxaa dhacay hadaba marka sidaad arkaysaan sawirro ayaa marka hore ay iska qaadeen madaxda waxa leeyahay waxa furay kulanka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amir Mohammed bin Salman maanto Arbaca shirkii khaliijka iyo Mareykanka wuxuu ka dhacay caasimadda Sacuudiga ee Riyaad hadaba marka waxa la sheegayaa in laga wada hadlayay arrimo muhiim ah oo gobolka ku saabsan waxaana shirka ku sugnaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda wadamada loo isku yiraahdo golaha iskaashiga khaliijka Sacuudiga Qatar Imaaraadka Kuwait Bahrain iyo Saldanada Oman lixda dowladood ayaa halkaa ku shirayay laakiin qaar madaxdoodu way joogtay qaarna way maqnaayeen hadaba dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa kulanka furay wuu hadlay wuxuuna ka hadlayay kalimadii furitaanka isaga ayaa iska lahaa wuxuu ka hadlay in Mareykanka ay ka wada shaqeyn doonaan iskaashi iyo wadamada iskaashiga khaliijka si markaa wadajir ay uga wada shaqeyn doonaan sidoo kale in xal loo helo dhibaatooyinka ka taagan gobolka bariga dhexe ay ka wada shaqeyn doonaan hadaba wuxuu sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in la dhameeyo oo la joojiyo dagaalka ka soconaya Gaza oo xal shaamil ah oo dhameystiran loo helo qadiyada Falastiin waxa sidoo kale Ibn Salman oo sheegay qaraarka arinta ku saabsan Donald Trump shalay oo cunaqabataynta kaga qaaday Suuriya inay tahay mid aad runtii u baahan in marka la dhiirigeliyo oo marka looga mahadceliyo madaxweyne Donald Trump talaabada uu qaaday wakaalada wararka ee Sacuudiga ee rasmiga ayaa sheegtay in amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani oo isaguna ka hadlay arrimo muhiim ah oo saakay markii uu tagay shirka magaalada Riyaad hadaba dhanka kale waxa la sheegayaa ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Oman ninka la yiraahdo As'ad bin Tariq ayaa waxa la sheegay in uu isagu markaa tagay caasimadda Sacuudiga si uu shirkan uga qayb galo isaga ayaana kursigii Oman ku fadhiyay waa ku xigeenka ra'iisul wasaaraha wuxuu wakiil ka ahaa suldaanka Oman ninka la yiraahdo Sultan Haytham bin Tariq Al Said
dhanka kale waxaa tagay goobta oo ku sugnaa amiirka dalka Kuwait الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح waxaa sidoo kale halkaa joogay dhaxal sugaha Abu Dhabi الشيخ خالد بن محمد بن زايد halkaa waxaa ka maqnaa ninkii madaxweynaha ka ahaa imaaraadka Maxamed bin Zayed ma tagin wuxuu soo diray ninka la yiraahdo dhaxal sugaha Abu Dhabi nin ah oo la yiraahdo Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan ninkaas ayaa la soo diray oo shirka uga wakiil ahaa imaaraadka wuxuu matalayay Mohammed bin Zayed ayuu matalayay boqorka Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa ayaa isaguna Riyadh ku sugnaa si uu markaa shirka uga qayb galo oo markaa howlaha shirka halka ay ka socdaan haddaba Trump ayaa isagu waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah wuxuu sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo dhameyn lahaa dagaalka Gaza maxaabiista loo sii deyn lahaa Iiraanna ay culays ku saarayaan sidii aanay u samaysan hubka nuclear-ka ah wuxuu dhanka kale amaanay horumarka ay sameynayaan dowladaha wadamada khaliijka wuxuu sidoo kale dhaliil u jeediyay John Biden oo maamulka kaga horeeyay Mareykanka uu sheegay inuu gobolka uga tagay xaalad aad u khariban isaguna uu hadda ka shaqeynayo wixii uu kharibay John Biden in uu hagaajiyo oo uu markaa isku dubarido oo uu sameeyo ayaa maartay sheegay dhanka kale Donald Trump wuxuu sheegay in xalay cunaqabatayntii uu ka qaaday Suuriya iyadoo qadka la iska arkana uu ku jiray madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo muddo Mareykanka kala hadlayay sidii Suuriya cunaqabataynta looga qaadi lahaa waxaa sidoo kale joogay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia marka wuxuu sheegay in kulankaasi dhexmaray isaga iyo Ahmed Al-Sharac uu ahaa saakay ayuu kulanka dhacay si leeyahay arbacada marka waxa leeyahay inuu ahaa kii noociisa ah ee dhexmara madax Mareykan iyo Suuriya muddo 25 sanadood waxa marka kulana oo madaxdii hore ee Suuriya iyo Mareykanka ay yeesheen ma jirin madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu markaa uu la kulmay saakay ninka la yiraahdo Ahmed Al-Sharac waxaana sidoo kale dhanka videoga la iska arko ka soo galay Erdogan oo markaa isagu markaa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio iyo dhigiisa Suuriya Asad Al-Shaybani waxa soo kale kelimada la sheegayo in cilaaqada ama xiriirka diblomaasiyadeed ay dib u soo ceshan doonaan dhinacyada kala duwan markaa iyagu Suuriya iyo Mareykanka marka sheekadu marka halkaas horta wax dhaceen marka waxa leeyahay muxuu u iman waayay Mohammed bin Zayed madaxweynaha imaaraadka وافيو يحي وعافماد قبا بريتو او خميس ايو ديار غروبيا انو سو دhoweeyo ninkaleeda Donald Trump oo imaaraadka u socda laakiin waxa la yaab leh Donald Trump soo dhaweyntiisaan u diyaar garooba macquul ma sababtoo ah Donald Trump maanta qadar uu aadaya amiirkii qadar Tamim bin Hamad shirka waafadi ninkan muxuu imaamay marka waxa la rabaa waxyaabo badan ay wariyaashu meesha ka fiirinayaan dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin ninkan la yiraahdo Mohammed bin Zayed wuxuu nacib yahay nimankan Sacuudiga ninkan oo kale Mohammed bin Salman ki asagu isma jecla inkastoo dhowr jeer oo hore ay qoreen warbaahin in labadoodu isku dhacsiin hadana ay labadooduba beeniyeen si cilmiyeysan marka arrimo badan la isku hayaa arinta Suudaan waa la isku hayaa Sacuudiga wuxuu taageerayaa dawladda البرهان واتي محمد بن سلمان وبرهان لفريستي ولشري نكن بن زايدة وإماراتك إساقنا معارضك نمك الدعم السريع لليه هاي حميتي يرقيسو تاقيريا يمن أوكال ويسكو خلافسيهين ما لبضان يسكو خلافسيهين مركا نكن وحسوك لآذو عروضا لليه هاي ترام
sacuudigan ka bilaaba uu yiri kulligiina sacuudiga isugu yimaada ninka intaas ka dhintaa si sacuudiga uga hadaa ka bilowdo xataa intee sideen ugu yeeray kulligeen meesha sacuudiga maxaa sacuudiga cunugan waa yar yahay maxamed bin salmaan ana ka waayay aragsan ana ka weyn oo maartay imaaraadka maartay sacuudi ahaan ma ahaan laakiin shakhsiyada ana ka siyaasay cunugan waa cunug yar abiisa boqoroodaga iska xanuunsan maana xataa baabaash maartay aqoon badan ma laha ana ka qatarsan marka ninkaan nin isla weyn waa leeyahay wuxuu intaa ka diidayaa inuu maartay sacuudiga wixii uu sameeyay oo halka maxamed bin salmaan jeer gareynay maanta shirka isaga furay isaga nin walba u dhiibay taraam hadal adiga hadal ninka intaas oo dhibsanaya lagu leeyahay ninka imaaraadka nin maxna socoto waa imtixaan waa marka waxa leeyahay ninka waa fahamnay ninkii Cumaan sultaankii Cumaan muxuu shirku u iman waayay سلطانك عمان waxay leeyihiin asaguna sacuudiga iskuma fiicna sababtoo ah Cumaan Iiraan xageeda waa u badan tahay iyo Xuutiga dhankaas ay jirtaa ayada khaliijka waa isaga jiraan ma ahane hadii wax laga rabo Xuuti iyo Iiraan ayada soo dhamaysa Cumaan nimankaas daris la tahay sacuudiga marka si isku khilaafsan yihiin dhowr jeer isku dhacdhaceen marka iskuma fiicna laakiin golaha iskaashiga khaliijkan waa lagu wada jiraa qaraabanimadii iyo wixii waa ka dhaxaysa laakiin isma jecla marka ninka la yiraahdo Sultan Haytham asagu arikaa uu san uga baaqday wuxuu u soo diray ra'iisul wasaare ku xigeen ayuu u soo diray isaguna kulanka halkaas waa sababtoo ah Cumaan heshiiskii Mareykanka iyo Xuutiga Cumaan samaysay Cumaan ka shaqaysay Xuuti iyo Sacuudi ma saarki karaan dhowr jeer la kala tagay Iiraan iyo hadda waxay ku shirayaan in Mareykan Cumaan ay ku shirayaan marka dhibanka Iiraaniyiintu waa tay lahaayeen annaga Cumaan sinaba nooga maharaysa ayada noo kala dab qaadaysa marka Iiraan xageeda lagu tirinaa marka nimanka Cumaaniyiinta oo maartay Cumaan dhankan Xuutiga iyo qantoodana ku jirta Iiraan xaqana darisay kaliyin xaqana Yamanta darisay kaliyin marka nimankan qarrac ay buuqi ma rabaan Cumaaniyiintu niman marka noocaas waa isaguna waxa leeyahay siyaasadaha bin Salmaanka iyo waxa kanu jeclaysan isaguna sidaas uu u imanin oo uu soo diray laakiin afartii kale way joogeen Sacuudiga isaga oo martigelinay Qatar waa tagay amiirkeeda Kuwait waa tagay Bahrain waa tagay marka afarta ayagu way joogaan lixda wadan ee khaliijka madaxda sare waxa ka maqnaa imaaraadka iyo Cumaan marka xaalku marka halkaas uu mara taraam marka wuxuu la kulmay saakiin ninka la yiraahdo Al-Sharaac madaxweynaha Suuriya dadkana waxa uu yiri hal soo galay ninka la yiraahdo Erdogan macnaha kreditka ama hawshan ku guuleysigeeda inuu Maxamed bin Salmaan kaligiis qaato rabo u fiirsada taraam waa nin aad u aqli badan محمد بن سلمان كليسا وحو ربي سوريا إنو يرادو أنا عنا قبطينتا إذن كقاضي أنا إذن كراها اللي دونالد ترامب نوحا سوتش العيي ومدو لها اللي وأنك اللي را أردوغان marka Donald Trump markuu go'aanka inuu gaaro damcay wuxuu yiri hal la soo galiyo Erdogan maadaama uu sanad joogin video waa la soo galiyay la iska arko si uu marka kaalinta uu isaguna ka qaatay arika Suuriyaanka loogu sheego macnaha Suuriyaanku inaysan dhigta Sacuudiga kaliya maqlin hadana uu dareensan yahay Donald Trump tartan inuu jiro meeshan Suuriya Turkiga iyo Sacuudiga si hoos loo tartamayo marka nimankan dhan waa akhriya carabta waxa dhan marka ninka Turkiga la soo galiyay sidaas ku dhamaad marka hawshaas iyaduna sidaas waay marka barnaamijka waxyaabaha aanu u daahinay maanta waxa kamid ahayd inay xogahan macluumaadkan muhiimka ah qaadataan hadaba qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa Xuutiga oo 24 saac gudahood markii saddexaad ku soo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena subaxnimo saaki waa 4 hadaba qaybta waxaynu ku faahfaahinaynaa Xuutiyiinta oo 24 saac gudahood markii saddexaad nagta ka saaray Israa'iil hadaba aan tuso telefishinka Al Jazeera ayaa qoraya ciidanka Israa'iil maanta 4 waxay sheegeen in difaacadooda dhinaca cirka ah ay ka hortageen saaruuq la sheegay inuu ka yimid dhinaca Yemen hadaba waa markii saddexaad weerar noociisa muddo 24 saac gudahooda ay markaa Ansaarullaahi Xuutiyiinta ku weeraraan Israa'iil tan iyo markii heshiiska ay wada galeen iyaga iyo Mareykanka hadaba waxa la sheegayaa warbaahinta Israa'iiliyiintu waxay sheegayaan in
la joojiyey dhaqdhaqaaqii iyo duulimaadyadii garoonka Bangorion ee caalamiga ah kadib markii saaruuqa la sheegay in bartilmaameedkiisu ahaa garoonka inkastoo ay sheegeen ciidamadu inta aanu hadafkiisa gaarin oo uu ku dhici rabay meeshii loogu talagalay in gantaaluhu ay ku guuleysteen inay ka hortagaan haddaba firirka ayaa la sheegay gantaalka inuu ku kala dhacay meelo kala duwan xitaa qaarkood uu soo gaaray daanta galbeed waxaana la sheegay in la maqlayay mar kale saakay siiriga digniinta ah oo ballaaran kaasoo laga maqlayay galbeedka magaalada Qudus iyo deegaanka la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeeni subaxnimo ee saakay fakari aragti adikuna waxa ka qabtaan barnaamijka noo soo qora qaybta fariimaha noogu soo qora hadaad nagu cusubtahay subscribe-ka ka iloobin YouTube channel-keena Nadaara Show Facebook hadaad nagala socoto page-kaanu ku leenahay Nadaara Show fadlan YouTube channel-keena Nadaara TV iyo Facebook-keena page-kaanu ku leenahay Nadaara Show fadlan frograintaan mar kale kulmayno nabadgelyo